إسرائيل iyo Mareykanka aniga laba farqi iyo ma kala ah waa isku hal dal waxa la dhahaa Israa'iil waa dhul dibadeedka Mareykanka ku yaala yani Mareykanka dhulka baxsan way maahane geopolitics ahaan iyo rules ahaan waa isku mid kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aynu ku eegi doono xaaladaha markaas cakiran ee Israa'iil iyo Iran oo Mareykanku waqti xaadirkan uu qayb ka yahay xilli uu markaas duqeeyay Iran waxaa qayb nagala ah oo wareysigeena nala falanqeyn doona maanta Mustafa Warsame Sibriyo oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda bal ugu horeen soo dhawow adoo ku soo dhaweynaysa goobjoogta shukriyo ma santahay waa ku dhawahay goobjoog ugu horeen bal waxaad sharaxaad naga siisaa xaaladaha cakiran ee markaas waqti xaadirkan ka taagan bariga dhexe runtii bariga dhexe xaaladdiida xalay ay isbedeshay inta badan waxa laga cabsi qabay inuu Mareykanku dagaalka soo fargeliyo oo Israa'iil ayaa ku andacoonayay inuu Mareykanku lama huraanta inuu dagaalka soo fargeliyo maalmihii u dambeeyay sida ay ku qoreen boorarka xarunta baarlamaanka Israa'iil waxa ku qorneed Mr President finish the job oo micnaheedu tahay madaxweyne howlgalka dhameystir ama micnaheedu tahay howlgalka soo gal xalay diyaaradaha loo yaqaan B2 oo ah diyaaradaha bambarka ayaa duqeeyay saddex xarumood oo nuclear ah sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan atomikada xarumaha la duqeeyay waxa weeye xarunta Natanz xarunta Firdaws loo yaqaano iyo Isfahan inkastoo dawladda Iran iyo wakaaladaheeda wararka ay sheegayaan in 19 ilaa 20 bishan inta badan laga guuray xarumahaasi laakiin goobihii la garaacay waxay ahayd goobo lagu tuhmayay inuu yaalay nidaamka bacriminta ee Iran oo muddo 20 sano ka badan ay soo bacrimisay watahay bal sidoo aragtaa duqeymaha xalay ka dhacay Mareykanka runtii markii la fiiriyo shuruucda caalamiga ah inuu adduunku dagaal saddexaad galo ay u eg tahay maxaa yeelay inta badan waxaan xasuusanaa wuxuu Mareykanku ku sameeyay Hiroshima Nagasaki oo ilaa hadda bini aadamku la ildaran yahay wixii ka soo gaaray caafimaad darro ahaa haddii xarumahaas la duqeeyay waxaa dhici karta maalmaha soo socda inkastoo Mareykanku yiri ilaa hadda waxaan isha ku haynaa maalmaha soo socda inaan daraasayno waxa Iran gaaray in arrin caafimaad saameeyay adduunka dhan siiba bariga dhexe wadamada khaliijka iyo Iran ilaa Iraq ilaa Pakistan maxaa yeelay ilaa Israa'iil shacta hadda dhibaatadaas suntaas waa saameynaysa maxaa yeelay nuclearku wuxuu leeyahay saameyn dadban iyo saameyn mustaqbalka ah saameynta tooska ah waa mid bini aadamku la falgalay midna waa mid mustaqbalka caafimaad darro adduunyada saameynaysa marka xilligan wuxuu Mareykanku soo aaday inuu isbedel dagaalka ku rido maxaa yeelay qaabka Israa'iil weerarka ku soo gashay waxay ahayd inay duqeydo xarumaha Israa'iil Iran laakiin hadda waxa uu qabtaa inuu dagaalkii ballaartay oo iyada laftirkeedii ayaa khasaare culus la gaarsiiyay maalmihii u dambeeyay waxa la duqeeyay xarunta Mossad oo warbaahinta caalamka aad u hadalay sida loo baabiyay sidoo kale dekadihii aeroboorradii meel kasta Israa'iil ayaa duqeyntaasi gaartay runtii marka waxaan leeyahay isbedelka dagaalka ay rabeen in Mareykanku isbedel ku ridaan sidoo kale Mareykanku isaguna waxay cabsi ka qabaan in la weeraro xarumihiisa gobolka bariga dhexe Mareykanku saldhigyo waaweyn ay ku leeyahay Iraq saldhig weyn al-Asad la dhaho sidoo kale ciidamada Mareyniska waxay degan yihiin Qatar sidoo kale Saudi Arabia ay saldhig ku leeyihiin halis ugu jiraan in Iran beegsto watahay fariinta ay dirayaan Mareykanku maxay tahay runtii fariinta Mareykanka ay dirayaan waxa waaye in Iran marnaba loo ogolaan hub nuclear inay samaysato Iran hal ku dhigeedu wuxuu ahaa hubka nuclearka waxaan rabnaa inaan qaab nabad u adeegsano iyo inaan tamar energy oo koronto aan ka sameeyno laakiin wadamada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin in ay Iran waxaas ay yihiin wax lagu marmarsiyoonayo ay rabaan inay Israa'iil ku weerarto marka fariinta Mareykanka uu diray waxay ahayd in Iran marnaba loo ogolaan in yani wada hadal habka nuclearka laga galo oo ah la baabiyo xarumaha nuclearka watahay miyuu dagaalkan horseedin karaa markaasi xaalad military ama dagaal military oo baahsan oo saameyn weyn ku yeelan doonto caalamka inta hadda dagaalku socdo waa muddo asbuuc ah inta badan furimaha ciidamadana isma dul faraysan maxaa yeelay Iran iyo Iraq iyo Israa'iil iyo Iran waa laba dal aan xuduudka u dhaxaynin oo masaafo dheer labada wadamo badan oo Carbeed u dhaxay marka ani ismalihi dagaal foolka fool bariga dhexe ka dhacaya laakiin dagaalaha ugu badan la isku duqeynayo duqeyntaasi noqonaysa maxaa yeelay qarniga lagu joogo waa qarniga tiknoolajiyada dagaalada ugu badan waxa la galaa diyaarada drones iyo madaafiic ayaa la isku adeegsadaa marka
dagaal foolka fool ani ima muuqdo oo Israa'iil iyo Iran dhex mari doono. watahay ma lagu tilmaami karaa bilowga dagaalkan mid caalami ah ama dagaalka saddexaad ee adduun? waa macquul wax walba oo dhici karaan maxaa yeelay quwadaha adduunka markii la fiiriyo Israa'iil waxaa garabka ka taagan Mareykanka iyo reer galbeedka sidoo kale dhanka kale marka ay Iran waxaa garabka ka taagan Putin iyo China oo inta badan inkastoo yani wada hadaladooda ama wararka ay ku taageerayaan iyo taageero afka ah ilaa hadda ficil sida Mareykanka kala ficilayso u dhaqaaqin laakiin waa macquul haddii Iran xaaladdu ku cuslaato inuu China dagaalka soo galo. watahay sidee dalalka markaas bariga dhexe ee Carabta uga falcelin karaan dagaalka? runtii Carabtu waxa weeye inta badan ayaka caqabada haysta inkastoo hadda waxaan arkayay dawladda Sacuudiga oo aad u cambaaraysay weerarka xarumaha nuclear-ka taas ku tilmaamtay in xaaladda uga sii darayso wadamada Carabta fartay ku hayaan maxaa yeelay haddii Iran laga soo jeesto in wadamada Carabta iyo wadamada Islaamka sida Turkiga iyo Masar ilaa bartilmaameysanayo ay egtahay marka inta lagu maqan yahay Iran fursad ay haystaan inay dhanka reer galbeedka ka soo horjeestaan. watahay ma laga cabsi qabaa dagaalkan inuu ku faafo markaas guud ahaan gobolka mise wuxuu ku ekaan doonaan Iran iyo Israa'iil? runtii Iran iyo Israa'iil kaliya kuma adkaan doono shalay ciidamada Iran Israa'iil waxay duqeeyeen bariga dhexe wadanka Lebanon oo Hezbollah ay ka cabsanayeen sidoo kale dagaalka kaliya ah bariga dhexe kuma socdo sidoo kale Yemen xuutiyiinta Yemen iyaguna waxay sheegeen inay ka baxeen heshiiskii Mareykanka la galeen arrimaha wada hadalka ayaguna gantaal ay dhankooda ka sugamayaan marka dagaalku Israa'iil iyo Iran ku bilowday hadda wuxuu marayay ilaa 4 dal wadamo toos uga qayb galay iyo wadamo si dadban uga qayb galay. waxaa jira wadamo xiriir la leh in markaas Iran sida haddii noqoto xuutiyiinta oo kale Yemen oo kale Hezbollah oo kale soo kale waxaa jira shir Turki ka socdo oo looga arinsanayo dagaalkan maxaa ka soo bixin kara shirkaas maxay tahay wax ogaad? runtii inta badan wada hadal waa jira inta badan madaxda Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil inta badan waxa lagu cadaadinaa in wada hadal galaan laakiin waxa uu qabtaa xanuunka gaaray Iran ayaa ah xanuun aan la soo يعني كسو وابسن كرين maxaa yeelay in hogaamiyaashii khubarada militariga 20 sano ugu dambeeyay cunaqabateynta saarna in hal mar laga dilo ma fududo in xarumaha nuclear-ka bacriminta yani la burburiyo ma fududo sidoo kale in madaxdii saraakiisha ciidamada yani la dilo ma fududo taasina inta badan waxa sahlayay musaadka Israa'iil maalmihii u dambeeyay warbaahinta caalamka waxay soo bandhigayeen gawaari diyaarado droneyso la qabanayo يعني furfuran sidoo kale waxa la arkayay dad badan oo musaad ah oo xarumo musaad oo gudaha Iran ku yaalay oo iyagana la soo qabanayay marka howlgallo ballaaran ee runtii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran oo laba dhinac ah marka xaaladdu aniga wax isleeyahay aragtideeda dagaalku wuxuu noqon doonaa dagaal teknolojiyada casriga la isku adeegsado oo labada dalayna aysan face to face isku wajihin laakiin drones ay noqon doonto. watahay dagaalka iyo xiisadaas iyo kordhaya sidee ayay u saameyn karaan dhaqaalaha caalamiga ah sida shidaalka iyo ganacsiga? runtii markii la dhaho shidaalka iyo ganacsiga waa wax ugu weyn adduunyada waxaan arkaysa wax sawir gacmeed lagu qaaday gacanka Hormuz waa gacan dhaca xeebta Bershiya iyo gacanka Cumaan waana halka ay maamusho dawladda Iran inta badan waxa uu qabtaa maraakiibta adduunka inay xal sida weerarku u dhacay in saaki dhaqdhaqaaqyada yar yihiin marka gacankaas Hormuz dawladda Iran dhowr jeer waxay ku sheegtay hadduu dagaalka Mareykanka soo galo iyo wadamada kale inay xiri doonto halkaas waxa mara 20% shidaalka adduunyada marka saameyn culus waa ku yeelan doona sidoo kale gacankaas waxa mara 50% shidaalka dhan adduunyada waxa laga soo saaraa bariga dhexe gacanka Hormuz ayaa laga dhoofiyaa marka saameyn dhaqaale oo xoog leh ayaa keeni doonta waana wixii yani crisis-ka dhaqaalaha ay dhacay 70 markii boqorkii Faisal oo wadamada reer galbeedka ka jirta dhaqaalihii shidaalkii arintii Falastiin ayay ka darnaa doontaa sida dadka wax falanqeeya ay leeyihiin marka dhaqaale ahaan aad u sameynaya laakiin dhaqaalihii midna waa mid toos midna waa mid tooska ah inta badan dhaqaalihii wadamada Iran iyo Israa'iil labadaba waa sameeyay maxaa yeelay ilaa hadda ma jirto dhaqdhaqaaq ganacsi iyo dowladeed adduunyada waa xirmay sidoo kale tii banaankana waa sameynaysaa oo inta badan shidaalkii adduunyada iyo batroolka meelihii maraya hadduu xirmo wuxuu sameynayaa wadamadii kale wadamada saboolka iyo wadamada taajirka.
watahay Soomaaliya ma jirtaa saameyn uu ku yeelan kara dagaalkan haddii ay noqoto mid amni iyo haddii ay noqoto mid dhaqaale inta runtii aniga aragtideeda wuxuu saameyn doonaa si toos ah si dadban u saameyn doonaa maxaa yeelay warbixinada qaarkood ay qorayeen in dowladda Imaaraadka oo ka wakiil Israa'iil ay saldhigyo military ku leedahay Puntland sidoo kale wuxuu saameyn doonaa dagaaladii oo bariga dhexe lagu soo horjeedo Xuutiyiinta oo inta badan culayska waa laga qaadi doonaa oo dhankaas sidoo kale wuxuu saameyn doonaa xiriirada diblomaasi ma saameyn doono maxaa yeelay Soomaaliya Israa'iil iyo Iran labadaba lama laha wax xiriir diblomaasi ah laakiin dhanka dhaqaale ahaan ayaa Soomaaliya saameynaya maxaa yeelay dalkeena inta badan waa dal wax soo dhoofsada manihin dad oo inta badan warshado leh marka dhanka maciishada iyo nolosha iyo shidaalka maalmaha soo socda la dareemi doona Soomaaliya waxay taageero ka heshaa Mareykanka dhinaca amniga ah haddana waxaa laga yaabaa ama la filayaa in Mareykanku ciidankiisa ama militarigiisa uu u weeciyo dhanka iyo bariga dhexe haddaba waxa uu Mareykanku Soomaaliya ka caawiyaa la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab saameyn noocee ah ay dhanka amni uga yeelan kartaa haddii dhinacaas ka fiiro runtii Mareykanku waa ujeedin badan yahay saameyn oo waa yeelaysaa maxaa yeelay waxaan xasuusanaa maalmihii u dambeeyay ciidamada Ukraine oo Mareykanka jaarka la ah inta badan diyaaradihii iyo militariga waa la soo qaaday marka wax macquul ah haddii culayska bato dhanka Soomaaliya diyaaradihii droniska ee Soomaaliya iyo xeebtan iyo saldhigga ugu weyn Mareykanka ku leeyahay Djibouti in culayska laga qaadi doono Soomaaliya oo dhankaas bariga dhexe loo qataasina waa saameynaysaa amniga Soomaaliya maxaa yeelay Mareykanka door amniga Soomaaliya waa wadanka ugu badan dhaqaalaha adduunka taageera sidoo kale waxa uu taageero awood siiyaa dawladda sidoo kale marka marinada badaha Soomaaliya dhanna wuxuu ka yahay waardiye marka waa saameynaya hadduu dagaalku sii socdo in ciidamadiisa Soomaaliya kala baxo bariga dhexe maxaad kula talinaysaa dawladda Soomaaliya iyo bulshada markii laga fiiriyo dhanka caalamiga ah ee dagaalka socda runtii Soomaaliya inta badan saameyn weyn oo kuma lahan dagaalka iyo wax inkastoo Soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay golaha amniga ay fadhiso sidadban laakiin haddana inta badan Soomaaliya waxa uu qabtaa inaysan saameyn badan ku yeelan doonin maxaa yeelay Soomaaliya waa wadan iska faqriya oo asagu yani danihiisa goonida la daala dhacaya laakiin inta badan saameynta ugu badan waa saameynta dhaqaalaha iyo saameynta siyaasadda adduunyada geopoliticska dhibaato weyn ka dhacay marka ismari saameyn guud oo Soomaaliya gaar ah ay ku yeelan doonaan watahay ku muuqata fursad diblomaasiyadeed ee dagaalkani lagu xakameyn karo ama lagu joojin karo runtii wadamada qaarkood uu Turkiga garwadeen ka yahay way wadaan in xaaladda la qaboojiyo laakiin waxa uu qabtaa xaaladaasi inaysan booski wada hadalka diblomaasiyadda waxa la yiraahdaa maalinta dhamaato waa bilowga dagaalka markii hore la rabay in arinta wada hadal lagu xaliyo hadduu dagaalka bilaabmayna natiijada ugu dambeeya waxa qaadan doona markii dagaalku midkii guuleysta ayaa midka laga guul dareysta ayaa inta ugu badan natiijada qaadan doona Mareykanka waxa uu si toos ah u garabsiiyay Israa'iil laakiin ilaa hadda ma muuqato Iran dhankeeda wax garab taagan marka laga reebo in China iyo Kuuriyada ay sheegeen inay soo gali doonaan dagaalka marka ma la dhihi karaa Iran dagaalka kaligeed ay ku tahay runtii Iran dagaalka kaligeed waa ku tahay laakiin dhanka kale markii la dhaho Israa'iil iyo Mareykanka aniga laba farqi iyo ma kala ah waa isku hal dal waxa la dhahaa Israa'iil waa dhul dibadeedka Mareykanka ku yaala يعني Mareykanka dhulka baxsan way maahane geopolitics ahaan iyo rules ahaan waa isku mid laakiin Iran dhibaato far badan haysta Iran muddo 20 sano ugu dambeeyay gobolka bariga dhexe dagaalo badan oo madhab ku saabsan ay ka gashay taas keentay in la weeqo awoodooda gobolka bariga dhexe maran akhrinayo maqaal oo qoray inta badan wasiirka gaashaandhigga Israa'iil wuxuu yiri Katsil wuxuu yiri waxaan burburinay wakiiladii dawladda Iran u qaabilsanaa bariga dhexe Xasan Nasrallah ahaan dilay Suleymaan ayaan dilay bariga dhexe ku dilay haddana waxaan rabnaa madaxda Iran oo Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweyne Mas'uud uu kamid yahay inaan ka takhaluso marka inta badan waxa uu qabtaa Iran inaysan dagaalkaasi garab la'aan ku tahay inkastoo dawladaha qaarkood sida China kale iyo Pakistan ay sheegaan inay garab istaagaan ilaa xataa waqooyiga Kuuriya laakiin haddana taageeradaasi waa afka baarkiisa watahay waxa jira wadamo badan oo Carbeed oo ilaa hadda ka aamusan dagaalka maxaa lagu tilmaami karaa sababta dagaalka uga aamusay runtii wadamadaasi Carbeed waa wadamo inta badan xiriir la Mareykanka iyo Galbeedka inta badan waxa jira markuu madaxweyne Trump yimid in wadamada Carabta laga saxiixay heshiis leeyahay heshiiska qarniga ama heshiiska Abraham
oo la isku soo dhaweynayay Israa'iil iyo wadamada Carabta lagana fogeynayay Iran marka inta badan wadamada Carabtu wax cambaareen ba u yihiin maahane wadan si toos ah danaha reer galbeedka uga soo horjeedi kara ma jiro siyaasiyiinta qaar ama falanqeeyaasha qaar waxa ay sheegayaan dagaalka Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyay in uu ka bilowday Falastiin oo caawinaad inay u fidisay isku dayday Iran arinta maxaa ka jira runtii arintaasi si madax banaan looma xaqiijin karo laakiin colaadda iyo u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran muddo soo jirtay waxaan isleeyahay I think wixii Ahmadinejad ka dambeeyay oo dhan ilaa 2009 wixii ka dambeeyay colaadani markii la sheegay in Iran nuclear samaysanayso oo riyadu tahay inta badan waxa uu qabtaa Israa'iil inay wadnaha farta ku haysay oo markaste Mareykanka iyo wadamada kale ay dhahaysay hal xakameeyo maxaa yeelay isku juqraafi ahaan Israa'iil ma rabto wadan la baawar ah ee gobolka Bariga Dhexe maxaa yeelay iyada kaliya hub nuclear ka haysta wadan kale hadii la helo waxay ka noqonaysaa birmigeed Iran talaabada ku aadan inay ka qaado dagaalkan muxuu yahay runtii Iran wadada kaliya oo u furan waxa waaye in dagaalka ay sii wado hadaan laga awood badan inta badan wadan Iraq kala tusaale soo qaadayna sidaan kala loo dukay aakhirkiina xukunka waa laga tuuray marka hadaysan garab helin ani wax isleeyahay Iran waa loo baqaa watahay taladaada ugu dambeysay markaasi aad ku soo gunaanadiis maxay tahay runtii inta badan Mareykanka iyo reer galbeedka inta badan adduunyada waxay u sheegi jireen inay ilaalinayaan hubka nuclearka inkastoo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ayaduna sidoo kale sheegaysa in hub nuclear adduunka mamnuuc ka tahay laakiin Mareykanka isaga bilaabay inuu meel atomika ah beegsado oo caafimaadkii iyo mustaqbalkii adduunyada halis geli marka waa khatar weyn oo qarnigan 12aad uu wajahayo taasina waxa keenaysa adduunyada waxa maamula nin xilkas ah madaxweyne Trump iyo waqooyiga Korea dadka maanta jooga dad xilkas ah oo mas'uuliyadda adduunyada ku aamini kara ma ma li kara su'aashaas dib ay ka dhalatay Mareykanka madaxweynaha waqtigan haysta Donald Trump waa carqalad abuure maadaama mar kasta uu yimaado waa la dhihi karaa maxaa yeelay nin cabqari ah oo siyaasadda muddo ku soo jira ma ahan waa nin dhanka ganacsiga iyo maalqabeennada ka yimid isagaana runtii udub dhaxaad oo khilaafka mar wuxuu leeyahay wada hadal aan la galeynaa mar wuxuu leeyahay go'aan aan ka gaaraa Trump waxa isleeyahay 4 qof oo jiro oo Trump la dhaho oo mid kasta si gooniyo warbaahinta u lahaa ma santaa kaga maxay celinay waqtigan wareysigeeni intaas ayuu nooga yahay wareysiga waxa qayb naga lahay markaasi Mustafa Warsame Sibriye kamid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda inta ku kulmi doono wareysiga xiga waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah